KTR News. And you're listening to the morning edition of WAM 51 degrees in Northwest DC at 7:43. Also 31 in La Plata, 31 in Reston as well. Well, later this hour, it's the Marketplace Morning Report. We'll hear how more and more financial institutions are turning away from investments in coal. What that means for both the coal and clean energy industries. That story and more business news on the Marketplace Morning Report. It's this morning, coming up in about 10 minutes on WAM. I'm shocked. Assalamu alaikum. I am so shocked. I'm shocked. I don't know. At High Point Farm or your preferred venue in the DC area. HighPointCatering.com. Geico, celebrating more than 75 years of providing auto insurance for drivers across America. More information about auto insurance is available at Geico.com or 1-800-947-AUTO. waxbaan ku qorayaa meesha wareedhaha waxaan caadi ahayn aan la ii sheegay aniga dhan am shaking waxaan rabaa inaan idiin sheego war wixii soo geli karaa soo galaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintan xaqa iga hadalsiinayay waxaan aaminsanahay xaq inuu iga hadalsiinayay labadan bari aan seexan waayay yaa bal soo gal intiina soo geli karta I just cannot believe it war wixiina soo geli karaa soo galaan anigu waxaan rabaa cadaaladaan rabaa aabahay hadduu dhalay xaqa iga yeersiinaya labadii beri oo lasoo dhaafay aabahay adeerka hadduu dhalay xataa waa in la jiido xaqa iga hadalsiinaya soo gal intiina soo geli karta waxaan rabaa inaan idiin sheegay I'm so shocked. I was crying. I have to stop and I owe you. I have to stop. Okay, على كل حال سوق لو وحي سوق لي كره وان لا هدلايا waxaan rabaa akhbaarna in siiyo ku saabsan gabadh yarta ahayd waxaan la yaabay xaqa iga hadalsiinayo waa seexan way dhowr habeen xaqa iga hadalsiinayo marka waxaan rabaa inaan ka hadlo cadaalad aan u baahanahay cadaalad ana iska bilaabay cadaalad inaan rabo ana iska bilaabay family-gayga haduu yahay qofka wax sameeyay I just cannot believe it. Okay, I have to stop. See, I want to waxaan rabaa inaan idiin sheego intiina ku jirta meesha waxaan rabaa inaan ka hadlo really this is serious waxaan rabaa reerkayga inay tusaale u noqdaan Soomaali maanta reerkayga my own family inay Soomaali tusaale u noqdaan aan rabaa cid u doodi karta cid difaaci karta cid u hadli karta male ana ugu horeeya dadka waxa hadda la ii sheegay waxaan la hadlay gaalkacyo waxa la ii sheegay nimanka gabadha dilay nin kamid ah adeerkay aabahay dhalay aniga baa aabiis dhalay eedan ah waxaan rabaa markiin ka hadlo cadaaladan raadinayay ana iska bilaabay reerkaygan ka bilaabay gurigaygan ka bilaabaya
Soomaaliya waxaan rabaa inaan si fiican ii dhageysataan berita markaan qof kale ka hadla cadaalad ha lagu qaadaa iraado ha dhihinina shala maxaa reerkaagi iyo dadkaaga u difaaci aad u cadaalad ugu qaadi weyday ilaahay xaqu iga yeersiinaya teer iyo xal waxaan ku waashay ilaa shalay gabadhan yarta cadaalad inay hesho waa weligay ugama xanuunsan xanuunka aan dareemay malaha it was my own family waxaan sameeyay yaa laakiin midaa idin sheegaya ilaahay uu itaasti gareenaya أنا وحى آمن سنة إلهي إنه إتاستقرينا إلهي إنه يقول فيرنايو وحن كهلاي عدالة دان كهلاي 24 hours دتك أنا هيستو لواتني أفر ساعة دتك أنا ليه وإنه وحاجاتيان وحتوسيان أنا أسكب بالعبوة. This came into my family. سيد هذا اللي إيشاقي قبل يرتاهي عائشة نمانك كفصدي أو دلي أو عني أو إلكا كربحي وحا كتشرة ويل adeerkay aabihiis dhalay sida hadda la ii sheegay horudhaca inta dambiga la baaray baaristi waxa lagu helay mid kamid ah wiilasha wiil aniga adeerkay aabahay dhalay adeerkay aabahay la dhashay wiilkiisa ku jira uu dhalay marka waxaan rabaa xaqa iga hadalsiinaya xaqa aan waxaan rabaa inaan la hadlo reeraha aan ka dhashay aan rabaa inaan la hadlo today qof u doodi kara mala ninkaas cid sheegan karta ninkaa malaha ninkaasayto waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo reerkaygaba laba waxyaabood aan rabaa inaan ka hadlo maanta kow reerkayga aan rabaa inaan la hadlo publicly ma qarinaay maadaama 24 saac aan banaanka taagnaay oo aan ummadda wax u sheegayo oo leeyahay xagga hala yeelo anina iska bilaabo waay yaa waxaan rabaa cidii igu nicelahayd iyo cidii igu jeclaan lahayd my own family haday dambi galaan waa in cadaalad la mariyo wiilkaas qof u doodi kara male ree hebelo iyo Umar Maxamuud iyo Khalafo iyo jinni iyo wallahi qof u doodi kara male kii u doodan hal xaaqo baas hal mariyo anigoo Safiya aha soo taagan maanta hadeera la ii sheegay taariisa ka dhan waa ooynaay waxa waay waa aamin waay my own family inay soo gashay sheekada laakiin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo reerka gabadha dhalay iyo ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka oo dhan aniga gabadhaasayto xigta saa loo galay ninka dadcunka ah oo wax cunay oo dadka cunay oo hawshan iyo waxaan lugta ku lahaa ima matalo أنا waxaan rabaa inaan ka hadlo reerkayga ma difaaci karaan kulli aniga reerka hadda markaan la hadlo waxa ligu yiri wax shuqul ku leh iyo wax sheeganaya iyo wax difaaci doona midna male waxaan ka hadlaa marka reerayooga guud oo tuugada ah yaa oo reer hebel aan nahay reer qalaf aan nahay waa in wiilkeena nin u doodi kara male ana waxaan taagnaa hala jiido hilibkiisa hala karkariyo hala shiilo hala jarjaro wadada hala mari hala lagu jiido hana la tuso ana taagan cid u doodi karta male waxa idin sheegaa nimanka reer hebelooga ku qaraabta iyo qabiilka ku qalaabta iyo oday dhaqameed ku qadaabto reer qalafka sheeganay ma ku dhacdaan inaad difaacdaan wiilkaas my own family waa ma ku dhacdaan inaad difaacdaan waxaan idin sheegayaa ninkii isu soo taaga inuu difaaco hal ii soo sheego meel walbaan ka liis gareenaya meel walbaan u dabagalaya meel walbaan u fariisanaya wiilkaas aniga eedad u ah oo ina adeerkay runa uu dhalay yaa oo la ii sheegay hadeer akhbaartiisa inuu ku jiro nimanka gabadh yarta ilkaha kala baxay oo cuna gabadha yaa oo ninka dadcunka ah reerkayga hadduu ka soo baxay ilaaha iga hadalsiinaya 2 bari 3 bari oo la soo dhaafay waxaan rabaa in la karkariyo hilibkiisa oo la jiido oo magaalada lagu jiido Soomaaliya ma maqlaysaa ninkii damca inuu u soo doodana bal waa arki doona oo reer hebel sheeganay kale aniga family-gayga wuxuu doodi doona male cid u doodi doonta male cid sheegan doonta male cid ka hadli doonta male kuwa la dhashaan ka hadli karin caruurta la dhalataan ka hadli karin hooyadiisan ka hadli karin aabiis waaba dhintay Allah u naxariisto cid ka hadli karta male cadaaladaan rabnaa dawladda Puntland anaa waxaan leeyahay toogto jiida oo daldala oo waxa ka soo laalaadisan sawirkan saaka soo galiyay ilaaha caadilka aan ku dhaartay inaanan ogeyn markaan soo galinaayay waxa aan u soo galiyay ilaahay hortii iga ahayd hadda la ii sheego waxa la igu yiri ninkaas ku jira
awal iima sheegin waxaa marka rabaa ummadda Soomaaliya inuu cadeeyo hadduu ku jiro kii adeerkay dhalay wiilkiisa waa in la jiido la daldalo xarig inta laga soo laalaadiyo la shiilo oo la karkariyo wadada lagu jiido naag difaaci karta male nin difaaci kar male bal ninkii u soo istaago reer hebel sheeganaya annaga noo taala cid difaaci karta male qabiil ma maqli kari qabiil u soo istaagi kar ma maqli kari hadda idin sheegaa Soomaaliya qabiil u soo istaagi kar malaha ninkaas reer hebel iyo reer qalaf wax la dhaho wallahi inaadan u soo istaagi karin oo difaaci karin oo aydan sheegan karin annaga reerkiisa ma rabno hala gubo hala shiilo hala karkariyo magac xumadiisa iyo fool xumadiisa iyo fidnadiisa iyo masiibadiisa hala karkariyo hala shiilo aniga waxaan taagnahay geedaha laga soo laalaadiyo ummadda islaamka oo dhan hala tuso ummadda Soomaaliyeed oo dhan hala tuso cashar ha noqdo wiilka adeerkay dhalay يا ويلك اللي يروح كشرة عشر هالنقطة ومد الصومالية وهلا أنت سأورنا يا ساكي وركاسة سوق جارم وانقر عمي وحارب عنا إدين شوق مع المهن ودنا هلا سوق كسنا سوق جلانداي حق إجهاد السيناي حق إجهاد السيناي وسيحن واي ويل كان الشيء جاي أو كم إذا نمك أفرت مسمشان تنين أو أفرت تنين ولا قبتي أو جوري لها قبل يرتاح لجها لي أو دي جدي واحد الشيء جاي لجها لي nimanka hala karkariyo adeerkay ku dhalaa ku jira la yiri ima sheegto isku dad ma nihin ma dhalin waxba naga ma dhaxeeyaan cid sheegan karta male ma la sheegan karo reer qalaf wax la dhoo ma sheegan karaan ana reer qalaf ka dhashay ma la sheegan karo wallahi na la sheegan karin oo nin u soo istaagi karin oo nin sheegan karin oo nin difaaci karin aabihiin iyo sinjiidiina gubanaysa haddaad sheegataan anaa reerkiisa waxaan leeyahay hala daldalo geedaha laga soo laalaadiyo hala karkariyo hilibkiisa hala shiilo jidka lagu jiido cabdi biraha lagu jiido dawladda Puntland waxaan idinka codsanaa inaa ninkaas karkarisaan anaa reerkiisa reerkayga ma u doodi karaan waaba ogahay ma u doodayaan mana sheeganayaan khalafka waxa lagu sheegayna ma sheegan doonaan anaa ugu horeeya dadka saaki oo hadlaaya يا أنا أقول رأي نكا إلا كركريوا نكا إلا شيله لكيسوا نكا إنجيل لك صلا لا ديوا على كنت أسوق سكوا مديرينا يساكي شاكذا ساكي وحواي وحابواي إلهي أنو بيقبل أبا عدالة أنو يقبل أبا أنا كهلا يلا بدأ بريسد حنا بريقبل يرتأ أنو يقبل أبا إلهي أنو حنتاجنا إلهي هو إما قل ساكي ويلينا باس هلا مريو nin u soo istaagi karana male nin sheegan karana male nin wax ku darsan karana male ka hala karkariyo hala shiilo hala karkariyo geed hala laga soo laalaadiyo hala gubo meedkiisa hala jarjaro isagii inta kale cid u doodi karta male kii aniga adeerkay dhalay hadaan leeyahay hala karkariyo inta kale cid u doodi karta male xaqa ina gurigaaga ka bilowdid waay reerkaaga ina ka bilowdo reerkaygan ka bilaabaya adeerkay wiilku dhalaan ka bilaabaya oo masiibada naloo soo diray iyo magac xumada iyo fool xumada iyo hooga laakiin bariyan ka nahay reerkaygana ma sheegan doonaan reer hebelo kale guudna ma sheegan doonaan my own family ma sheegan doonaan waxaan taaganahay hala karkariyo ana hadlaay hala karkariyo hilibkiisa naag u doodi karta male walaashiisu ma doodi karto hebel kale uma doodi karo tii u dooda hala toogto iyadana ninka u dooda hala toogto أنا تاجن ساكي أدرك هذا لي يا هل كاسن تاجنا سوماليا هل كاسن كأكينا يا ساكي أنت سان أصوغ لي وحكلوا إرادة ما قانون هيرك قبل اللي قد لينا يا هذا وحوي أنا ما أنا إذا كد لين قبلي وإذا شيء عدالة هلا مريو عدالة هلا مريو هذا أنا قد لها قف كد لي إلهي إيجا ما أبو روح نوع عاسو كلاه عدالة هلا مريو أنت تاجنا يا gabadha yarta hadeera warka la ii sheegay waan qaracmay wan ooyay teeri saaka 4 in the morning sa u kacay ma fasaxanin waxa way wiil waxa la ii sheegay adeerkay dhalay wiilkiisa inuu ku jiro aabihi wuu dhintay ya gaalkacyo ciyaalku waxay ahaayeen waxay ku dhasheen walan weyn ee ciyaalka ku dhasheen ya dadkii qax ku aaday waa mudug oo gaalkacyo halka ku aaday qax waay ma garateen ciyaalka masiibada ku dhacday waay cuqubo waay aniga reerkayga cuqubo soo gali mayso ninkaas reerkaygu ka bariyihiin aniga hadda markaan reerkii la hadlay qaar waxa liigu yiri shuqul kuma lihin
shuqul kumaliin reer qalafka la sheegaa uma doodi kartaan tuuga yahay uma doodi kartaan car u dooda car ninkii sheegta aan arko ninkaas car ninka u dooda ani waxaan dawladda Puntland iyo ciidamada BS-ta iyo sirdoonka aan ku wargelinayaa kii u dooda oo sheegta Cumar Maxamuud oo reer qalaf sheegta Baas Mariya ninkii sheegta gabadha yarta aan nimanka dhibaateeyay Baas Mariya aniga reerkay ka bilaaba hadduu mid adeerkay dhalo u soo hiiliyo haddii mid awowgay dhalo u soo hiiliyo haddii mid aan isku jifanaha u soo hiiliyo Baas Mariya anaa garab idinku siinaay Baas Mariya gabadha yarta ah xaqay rabtaa cadaaladay rabtaa waxaan rabaa cashar inay u noqoto islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland reerkaygan ka bilaabay cadaaladda reerkayga my own family ma qiyaasi kartaan my own family wiil adeerkay baa dhalay yaa ninka gabadha waxa qashi ku jira anigu waxaan taagnaa hala gubo hilibkiisana hala ituso aan taagana ummadda islaamka ay maqleysaan Soomaaliya way maqleysaan reer Puntland way maqleysaan haddaan adeerkay wiilku dhalay aan leeyahay hala gubo hala karkariyo hala jiido oo hala daldalo fiilaha qoorta looga xiro cid kale asxaan u falay mal ogaada waa iga daacad gabadha yarta cadaaladay rabtaa gabar dambe oo Soomaaliyeedna far la saari maayo inta noolahay waa u dagaalamaya this hit me so hard ya ma garanayo waxa gabadhaan goonidii iiga dhigay xanuun igu haysay aanan garanaynin gabadha yarta ah xanuun aan zaa'id ah igu qabatay marka arkay waxa lagu sameeyay wax ilaahay malaha wuxuu soo waday inuu yiraahdo family-gaaga waay your own family asameey cadaaladan rabaa ninka in la karkariyo waay xataa xabad lagu ma dilaayo waa la karkarinahay ilibkiisa meel laga soo waa la soo jiidaa waa la daldala cashar inuu noqdo waay intaasaan ku soo koobaya hadalka waa dheereeyay laakiin waa qaraacansanay qalbiga xanuunaya ma hadli karo maantay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegaa ummadda Puntland ninkaas adeerkay dhalay in la daldalo la karkariyo la shiilo cid sheegan karta male kii u soo doodana Baas Mariya qalafo mi maqlaysiin annaga reerkeena niri ma rabno ma sheegan kartaan idinkana Puntland waxa xor u tihiin ina Baas marisaan Baas kii u soo hiiliya way maqleysaan dawladda Puntland madaxweyne Dani ninka gobolka maxaa la dhahaa gudoomiyaha gobolka Mudug Inadir maxaa la dhahaa duqa caasimada Gaalkacyo Yaasiin Cabdi Samad way maqleysaan ummadda islaamka way maqleysaan reerkeena waa ka bari reerkeena ninka baladu qaadato iimaanka alla ka qaado bahalka aan gabdhahayga yarka ayadu ahay oo walaalihiis xataa ma cafinayo ani ma cafinayo ninka gabadha saa u galay yaa waa in la gubo waa in la daldalo ilaaha masiibo u keenay masiibada asay ku ekaane reerkii geli mayso masiibada asay ku ekaane qof habaaran waay qof cuqubo ku dhacday waay qof ilaahay amar ku riday waay annaga na soo geli maayo cid sheegan kartana male kii sheegtana Baas Mariya kii sheegtay waa maqlaysiin reer Puntland salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana Safiya